waxa kale oo jira dad booqda guryaha Soomaalidu waa isbooqataa qaraabo ayaa isbooqanaysa asxaab ayaa isbooqanaysa gurigii baa dadkii laga furaya soo dhaweyn ayaa loo sameynaya fadhigii ayaa la fadhiisinaya kadibna waxaa loo diyaariyay dabcan sida caadada ah ama shaah ama qaxwo ama cabitaan ama waxyaabo macmacaan ilaa hooyadaas iyo aabaha guriga joogahay waa dad xil ka mudan dadka asxaabtooda ama walaalahooda dadkii yimid waxaa laga rabaa inay fadhiistaan oo ay noqdaan dad martiya qaarkood markiiba martinimada way ka baxayaan iyadoo weliba ay arintaasu arrin aad u dhibaysa ay tahay hooyada guriga ama aabaha guriga way istaagaysaa derbiyada ayay fiiris ku bilaabaysaa bugaag meel saaran ayay fatashaysaa way soo baxaysaa jikada ayay tegeysaa qoftaa dumarkaahi qaanadihii ayay eegeysaa maxaa waaye alaabtii idintaalaahi way ka soo baxaysaa hooyada qolkeeda laga yaabaa inay soo gasho armaajadeeda inay furfurto oy tiraahdo duruucdaadu aaday u badantaha ama waxaan waa laga tegay iyo waxyaabo lamida waagaag qofkii kale ee meesha fadhiya wuu yaabaya qofkani markay ku soo laabato meeshii ay fadhiday telefono ayaa reerka u soo dhacaya ama kan gacanta ha noqdo ama ka guriga soo dhicidda ay soo dhacaan jawaabteeda waxaa iska leh dadka guriga iska leh qofkani ma fadhi karo inuu telefonka ka jawaabo maahane halow assalaamu calaykum yaa rabteen waxa waaye hooyadii guriga waa mashquulsan tahay maxaan u sheega waabay hirraagaysaaba qoftaani arrintaasu waxoogaa waa dhaqan xumo dadka qaarsay u arkaan ama waa magaalo joognimo xumo waxaa dhici karta reerkii oo gurigoodii joogo marti loo yahay in albaabka lasoo garaaco guriga haddii albaabka guriga lasoo garaaco furitaankiisii furitaan la-aantiisa waxaa iska leh hooyada guriga joogta ama aabaha guriga jooga gabadhii martida ahayd ayaa markiiba baxayso furihii qaadanayso albaabkii dadkii ka furayso soo gelinaysa arrintaas lafteedu waa culays kale oo dhaqan xumo lagu tilmaamo uma roona hooyada guriga iyo aabaha guriga waxaa jira mararka qaar xafladaha marka la dhiganayo aroosyada waxyaabaha qoraalada aan ku aragnay reer baa aroos qaba wiil iyo gabar baa iscalmaday labada waalid ee labada dhinac arooskii bay qabanqaaminayaan kharash badan bay bixinayaan arooskii baa la tegayaa arooskii markii la tago oo dadkii martida ahaa lasoo fadhiisiyo waxaa imanaya dumar ilaa 4 ilaa 5 oo isla socda oo cid soo dirtay aysan jirin labada xafladda labada reer ee watana isma yaqaanaan ayaga un baa iska socda weliba lama casuumin oo wax looma dirin maaragtay invitationa markay soo galaan markiiba dhinacyada eegayaan waa gudiyada qiimaynta ee iyagu isdiray markay dhinacyada eegaan markiiba waxay arkayaan fadhigu siduu yahay waxaa loo imanaya qoladii meeshii microfonka uu yeelay iyo qalabka warbaahinta iyo qolada muusiga haddii heese ay jiraan waxaa laleeyahay adinka meesha aad dhigateen alaabta meel khaldan waaye koono waaye alaabta qaada meeshaas dhexe geeya oo ku aadiya maaha arooska wiilka faamilkiisii arooska gabadha faamilkoodina maaha dumarka saa samaynaya dadkii xafladda la joogay ayaa laleeyahay inta loo tago qolada cuntada qaabilsan raashinka aad diyaariseen in mise qofuu ku filan yahay waa arrimo ay dhici karto daawad inaad istiraadaan arrintani waa ka badbadin oo ma jirto lakiin waa arrimo dhacay waxa kale oo jira xafladaha aroosyada ay dadku dhigtaan dadku qarash bay ku bixiyeen wiilkooda iyo gabadhooda inay farxaan dadka imanaya ay la farxaan si nabadgelya inay ku dhammaato dad waxaa jira u taga inay rabshado iyo dagaallo ay ka kiciyaan arrintaasina arrin wanaagsan maaha oo u roon faamilka labada dhinac ama soomaalida meesha tagtay taa waxaa ka sii daran waayahan dambe baraha bulshada saa la socotiin dad ayaa jira aroosyada laga casuumo waxaa barbar socda soomaalida inta badan aan la casuumin reerkaas wiilkii gabadhu waxba uma arkaan qof soomaaliyeed oo yimid iridana kama celiyaan way soo dhoweeyaan laakiin culays badanaa lagala kulmay waxaa la samaynayaa baraha bulshada ayaa sawiro la qaadaya la gelinaya social mediahii facebook ayaa life laga dhigaya arooskii islaameed cid u dirsata male lama dhihi noo duuba arrintan lafteeduna waa arrin aan wanaagsanayn faamilkii ayaa isla markiiba la wacaya waxaa laleeyahay adinka aroosaa qabteen mana noo sheegin haddaan live facebooka ka daawanayna arrintaas waa dhaqan xumo ama magaalo joogno xumo sida loo arko waxaan xusuusanayaa faamil soomaaliyeed ayaa aroos dhiganayay kadibna waxay sameeyeen faamili waxaa jira ku shaqaysta in ay jaakadaha iyo telefonada iyo dadka ay ka reebaan irdaha marka la joogo lambar baa qofka la siinaya lambarna waxaa lagu dhejinaya jaakada lambar baa la siinaya lambarna waxaa lagu dhejinaya telefoonka waxaa laga wadaa in qof telefon wataa uusan xafladda gelin si looga hortago arrimaha iminka aan ka hadlayo arooskaas soomaaliyeed markay saas dhacday dumar ayaa jiray aad uga xumaaday arrinta oo intaanay telefonada dhiibin 2 option ay haysteen in ama ay galaan iyagoon telefonka haysanoo laga qaaday ama ay iska laabtaan marka qaar ayaa jiray ka gaarsiinayey inay telefono diraan si ay u cambaareeyaan ama u eedeeyaan reerka arooska dhiganaya oo yidhaahdaan reer baadiyaha ayaa aroos meeshaan ku qaba maxaa yeele waxay diidayaan telefonadii in lala galo
waxaa nasiib darro noqotay dadka iridda taagnaa inay ka mid ahaayeen dadka xafladda dhiganaya dad la xidida oo qoladii sidaa u hadlaysa markay maqleen ku yidhi haddii teleefonka walaa lagaa dhigay haddaan lagaa dhiginba aad labadiinu geli maysaan maxaa yeelay waxaad jaa'ifayseen dadkii arooska ahaa. arrintaasina waa arrin kaloo xoogaa dhaqan xumo ama magaalo joogno xumaa. waxaa kaloo jira dadka soomaaliyeed qaarkood ayagoon hubsan qof sii jeeda ayay feer ku dhufanayaan ama ay biyo ku daadinayaan ayagoo u haysta inuu qofkii ay yaqiineen uu yahay. hadhow marka uu soo jeesto qofkii maa raalli ahoona wax ma tarayso.